This is how I feel. من لو سعيو ساحن خلينا سيدا ساحن من لو سعيو ساحن حسيحن ساحن حسيحن حسيحن سوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qofka idin la hadlayo waa Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed. channelka aad daawanaysaan waa Yuusuf Ifiya Official. inta habeen u tahay waxaan leeyahay habeen wanaagsan, inta galab u tahay waxaan leeyahay galab wanaagsan, inta subax u tahayna waxaan leeyahay sidoo kale subax wanaagsan. waa maalin kale iyo habeen kale iyo mar kale iyo muuqaal cusub iyo waqti cusub kolba Soomaali Maxamed. marka hore waa salaamantiin salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa dareemi kartaan caawa wax horteeda yaala iyo wax aan labisanahay sidoo kale wax laydin sheegayo ma ahan. waa maalin kale iyo waqti kale oo qurux badan oo weliba farxad iyo reereyn ay ku dheehan tahay. maxay tahay mataqaaniin? caawa maxay ku beegan tahay 6 saac haween. maxay ku beegan tahay markii 6 saac haween la gaaro 1 Luulyo. waa maalin run ahaantii aad iyo aad agteen ay aad ugu qiimo badan tahay, aad ugu weyn tahay. waa maalinkan qaadanay xurnimadeennii oo maanta aan dunidan ku joogno, oo maanta anaga aan ku faano, oo maanta aan leenahay oon u dabaaldegno. maalinkan xurnimada qaadanay aad baan u faraxsanahay. Soomaali meel walba ay joogto oo luqadan Soomaaliga ku hadasho dal iyo dibad, marka hore waxaan u dirayaa hambalyo. waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar koowaad intaba. horeyna waan u sameeyay hambalyo sidaan oo kale waan usoo diray walaalahayga Soomaalida meel walba ay joogaan. haddana mar labaad waxaan diyaar u ahay inaan mar labaad aan hambalyo usoo diro. aadna waan ugu faraxsanahay. caawana waxaan u wadaa dardaaran. Soomaali Maxamed meel walba aad joogtaan, marka hore waxaan idinla dardaarmayaa inaad isku xirnaataan oo is cafisaan. meel waliba aad joogtaan dal iyo dibad, cafintu waxayna gaarsiinaysaa heer inaan noqono dad wixii hore ilaaba, nolol farxad leh iyo barwaaqo leh ku noolaada. nolol farxad iyo barwaaqo leh ku noolaada. hambalyada aan ummadda Soomaaliyeed u diraayo horta wax halkan lagu soo koobi karo ma ahan. waa fahamteen soo maahan? ma halkan lagu soo koobi karo ma ahan. haddii aniga caawadan halkan fadhiyo oon iraado hambalyo hambalyo, Soomaali ma soo koobi karo qiimaha ay habeenkan iyo maalinkan ay u leedahay. aadna waan ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeesho inaan meel soo fariisto oo hambalyo ummadda Soomaaliyeed aan usoo diro. aad baan ugu faraxsanahay inaan Soomaali ahay. waa garateen soo maahan? aad baan ugu faraxsanahay. Soomaalinimadana waa mid qaali ah. dadka qiimaheena anaga garanaya oo dibadaha ku nool oo weliba anaga dalkeena u dhalanin waan dareensanahay. waxay iyaga anaga nagu bogaadinayaan in aad ugu faraxsan yihiin inaan weliba Soomaali nahay. waxaan dad u qabanay iyo waxaan nahay dad baa taariikhdeena haya. aad baan ugu faraxsanahay inaan Soomaali ahay. hambalyan ummadda Soomaaliyeed waan u dirayaa. waxa kaloon rabaa inaan dhaho Soomaaliyey aan iswada cafino, wixii hore aan iska ilaawno, aan buug cusub furano, annaga aan noqono dad Soomaalidii meeshii 30 sano ka hor joogtay meel kasii sareysa joogna. mar waliba waxaan u taagana dhalinyar haddaynu nahay inaan isbedel sameyno. annaga mar waliba aan taageerno dowladeenii qiimaha badan, ti kasta ahaato mid hadda joogta iyo midii laga soo tagay iyo midii hadda soo socota, intaba inaan taageero buuxda aan u fidino. waxa ka qaldan inaan u saxno, waxa ku saxsan yihiin inaan ku niraano kooy waa socotaan waa saxantihiin. madaxdeena hogaamiya inaan madaxdeeni aan garab istaagno. diyaar baan u nahay dal iyo dibad meel walba aan joogno. aadna waan ugu faraxsanahay madaxdeena dalka jooga iyo kuwa soo socda iyo kuwa horey u joogayba. aad baan ugu faraxsanahay waayo Soomaaliya meesha ay joogtay waa la ogyahay, haddana meesha ay soo gaartay waa loo jeedaa. dadkii keena iyo dadkii hadda sii wada intaba horta marka hore aad bay ugu mahadsan yihiin. dadkii imaan doonana meesha ay taagantay kasii wadi doonana insha Allah iyagana waan soo dhaweyn doonaa. aadna waan ugu faraxsanahay. run ahaantii Soomaaliya waxaan leeyahay ha guuleysato, ha noolaato, meel walba ay joogaanna Ilaahay ha xifdiyo.
mar waliba waxaan ku celcelinayaa mataqaaniin inaan ku faraxsanahay inaan Soomaali ahay. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha guuleysato, meel walba ay joogto, waddankeena ha noqdo mid sida hadda uu yahay si kasii horumarsan. run ahaantii dhagahayna waxaa kusoo dhacay mar waliba horumarka ay sameynayso Soomaalida waliba dalka ku nool. soo waxaa garateen maahan aad bay noo dhiirigelinaysaa haddaan nahay qurbo joogta. waan ku faraxsanahay Soomaaliya waxa ka socdo iyo horumarka ka socdo. waxaan leeyahay keep going, hala taageero qof waliba Soomaaliya aayaheeda ka talinayo, danteeda ka talinayo, hala taageero. Soomaaliya taariikh badan bay leedahay, anagana buug iyo iskoolna waa kusoo dhigana, waana la soo baray. markaan meelaha aan imaanana Soomaaliya dadka taariikhdooda wax ka og way noo sheegeen in Soomaaliya ay ahayd geesiyaal Afrika dadka ugu libaaxsan inay ahaayeen. midaasna anaga maanta farxad bay noo tahay. waxaan rajaynayaa in anaga meeshii xilligaas aan joognay meel kasii sarreysa aan gaarno. way noo muuqataa mustaqbal wanaagsan. ubadkeennii iyo wixii anaga naga dambeeya waxaan rabnaa inaan u dhaafno nolol wanaagsan iyo aayatiin iyo mustaqbal aad u ifaayo. anaga qurba soo aadnay waxaan rajaynaynaa caruurteena iyo wixii ay dhalaan inay waddankooda ay isagoo barwaaqo leh ay arkaan. waxaan mar waliba shacabka Soomaaliyeed ku guubaabinayaa inay waddankooda ay xifdistaan, ay noqdaan muwaadiniin u taagan mar waliba inay dalkaas difaacaan. meel walba aan joognana haddaan awood u lehna xataa inaan waddanka joogno anaga aan difaacno. qalbiga maanta ka taageersannahay oona ka difaacaynaa Soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad. hambaliyo shacabka Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan. hambaliyadaana waa saan hore idinku sheegay mid la soo koobi kara maahan. farxaddan anaga aan ku jirnana mid la soo koobi kara maahan. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliyey toosoo isku tiirsadayey, hadbadkiina taagdaraney, taageera weligiiney. waa isku ogeen midaas inaan kiiba taagdaran inaan istaageerno. waxa anaga aan maanta aan ku faraxsan oo dadkan ay nagu amaanaan maxay tahay mataqaanaa? ilaan dadka ummadaha oo dunida ku nool istaageerid iyo wax kala qaybsasho ma yaqaanin xaqiiqatan markaan idinka hadlo. laakiin anaga haddaynu nahay anaan qof anaga naga mid ahayn xitaa oo jinsi kale hadduu dhibaysan aan aragno waa kaalmayna. inaan iskaalmaynana waa mid anagna lagu amaano. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan xilligan aan hambaliyada halkan usoo fariisto, aan ummadda Soomaaliyeed usoo diro. mar walibana waxaan heegan u ahay aniga iyo waliba boqolaal waliba malaayiin oo ummad Soomaaliyeed inay u dabaaldegto xornimadeeda iyo goorta ay qaadatay intaba. aad baan u taageersanahay, aad baan ugu faraxsanahay. Soomaali Maxamed mar labaad mar saddexaad iyo waliba 1000 jeer waxaan idin leeyahay hambaliyo. muuqaalkayga halkan ayaan soo gabagabaynayaa. wixii dardaaran iyo wax sheeg ahna kolba idin soo gudbiyay. waxaan idinka codsanayaa cidii muuqaalkan soo gaarta oo daabata inay sii share gareyso si ay iga gaarsiiyaan ummadda kale ee Soomaaliyeed hambaliyadan. waxaan idin leeyahay Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha waarto, Soomaaliya nabad iyo bashbash iyo barwaaqo gaarta. ilaahay hana wada tuso anagoo nabad ku wada nool. waxaan idinkaaga tagayaa sidaas iyo waqti wanaagsan iyo horumar wanaagsan iyo inaan iscafino. waxaan idin dardaarmay horena idin dardaarmay aan haddana idinkaaga tagayaa muuqaalkan inaan iscafino. Soomaali Maxamedey cafis, walaalkaaga cafi, walaashaada cafi, ehelkaaga cafi, ummadda Soomaaliyeed kulli ha iscafiso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.